habeen wanaagsan. Waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo warbixin laga diyaarshay kulan dhex maray wasiirka arrimaha dibadda Raashiya iyo madaxweynihii waddanka Mareykanka Jimmy Carter. Kulankan wuxuu dhacay 27 bishii May 1978. wuxuu ka dhacay Washington 8 subaxnimo ilaa 12:40 daqiiqo. ku dhawaad 4 saac iyo 40 daqiiqo ay wada hadlayeen. wasiirka arrimaha dibadda Raashiya xilligaas oo la oran jiray Gromyko wuxuu hogaaminayay wafdi halka u tagay wada hadal. madaxweynaha Jimmy Carterna waxaa la joogay wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo xubno ka mid ah dowladdiisa. kulanka waxaa diiradda lagu saarayay xuquuqul insaanka Afrika bay ahayd. haddaba siduu kulanku u dhacay dhowr waddan baa ku jira laakiin inta Soomaaliya ah baan nuxurkeeda idiin soo qaadahay inta Soomaaliya ay uga wada hadleen. waxaa hadalka bilaabahaya madaxweynihii Jimmy Carter baa hadalka bilaabahaya. waxa uu ku wargelinayaa akhbaarta ay ka hayaan ficilada Afrika ay ka wadaan Raashiya iyo Kuubaanku. waxa uu leeyahay madaxweynaha Jimmy Carter wuxuu leeyahay waxaan ognahay ama akhbaartana soo gaaraysa oo Kuubaanku inay 40,000 30,000 40,000 ilaa 60,000 oo ciidankooda ay Afrika ka howlgalayaan maantana aan ka hadlayno. taas ma dhici lahayn hadduusan Raashku si toosa uusan gacan uga siin ama uusan u ogeyn ficilada ay qaadayso. wax keligood awood ay keligood Kuubaanku u leeyahay inay sidaa awood noocaasa ay ku galaan Afrika ayagoonan gacan ka haysan Raashiyaanka ma dhici karto. waxaan ognahay meelaha ay galeen Kuubaanku inay tacadiye ka dhaceen sida wuxuu soo qaatay Eritrea oo kale. waxa uu soo qaatay waddanka la yiraahdo Zaire oo kale oo Angola laga soo weeraray uu leeyahay. waxa uu soo qaatay wadamada Rhodesia la oran jiray iyo Namibia. kuwa marka wuxuu leeyahay waxa ka howlgala Kuubaanka iyo ciidankiisa. kuwana wuxuu leeyahay waxa naga soo horjeeda aragtida Raashiya oo ku dhisan duulaanka moogta ayagoo fikirka iyo hubka iyo wax walba wada ciidan marka loo baahdana ay noqonayso. waxa uu leeyahay Jimmy Carter marka waxay ku wanaagsanaan lahayd inaan ka wada shaqayno. adduunku wuxuu uu la yaaban yahay Raashiyaanku duulaankan uu Afrika ku hayo oo meel walba ciidan iyo hub uu la ordahayo. adduunka oo dhan wadamo badan baa isweydiiyey. marka waxaan idinka rabnaa sidii aan wax loo dejin lahaa inaad saaxiib la noqotaan intii aad dab hurin lahaydeen buu Jimmy Carter ku leeyahay. weliba wuxuu leeyahay fariinta waxaan rabaa markaad laabatid inaad madaxweynihiina iga gaarsiisid. wasiirka arrimaha dibadda Raashiyaanku markuu madaxweynuhu hadalkiisii sidaa u dhigay buu u jawaabayaa. wuxuuna ku bilaabayaa annagu ka Raashiyaan ahaan mar walba dad xal doonaan nahay, dad dhib raadiya ma nahay. qodobadiibuu marka qodob u dul istaagayaa. waxa uu leeyahay waxaa tiri ciidan ama go'aanada horta Kuuba waa waddan madax bannaan Soomaad arag. nambarkii aad sheegteen aad xusaysaanna waxay fiicnayd inaad ka fiirsataan intaydan ku hadaaqin. midda labaad waxa aan hore u maqalnay ama idaacadaha aad warbaahinta aad hadalladaad ka soo gudbinayseen adiga madaxweynaha iyo dowladdaadu marnaba ma ahayn kuwo xal horseedaya. Soomaad arag hadallada aad ku hadlayseen. marka taasna in meesha ay ka baxdaa wanaagsanaan lahayd waxa aad ka hadlaysaanna ay xaqiiq noqoto. arrinta wuxuu leeyahay Eritrea aad soo qaadeen annagu ma ogin meel ciidan Kuubaana uu ku galay Eritrea.
teda kale eritreyankuna nooma sheegin mowqifka yaga marka eritreya ku saabsan annaga dowladda midowga soofiyete haddaan nahay waxaan qabnaa eritreya in ay maamul goboleed madax bannaan oo ku hoos jirta xukuumadda ama midnimada etoobiya inay noqoto gaar ay isku maamusho laakiin marnaba aysan gacanta etoobiya iyo midnimada etoobiya aysan ka bixin qorshaha aan rabno waa taas kuubaankuna sidaasuu nala qabaa laakiin mar walba ogaada nabadda eritreya kuma xirna eritreya keliya ama etoobiya quwado bannaanka ah oo u arka fadqalalo ama inay dadkan eritreyanka ku solgaaraan siyaasiyan ay yidhaahdaan goosta ka cabaa jira kuwaas oo aan meesha ka bixinna nooma muuqato inay xal ka imaan karo laakiin xalka aan qabno waxa weeye eritreya inay midnimada etoobiya ku hoos jirto ismaamul gaar ah ay noqoto tan ah raashiyaanka ama tan ah kuubaanka iyo ciidankiisuna ma qabno inay galaan waddankaasina eritreya nabad baan u rabnaa arrinta soomaaliya wuxuu leeyahay madaxweyne siyaad barre iyo dowladdiisu wax aan ku wargelinay inaysan etoobiya weerarin waxa uu madaxweynuhu noogu yimid waddankayaga waxaan mar labaad u sheegnay in aysan duulaan ku qaadin etoobiya labada jeerba madaxweynuhu iyo dowladdiisu iyo xukuumaddiisu waxay noo sheegayeen inaysan marnaba etoobiya weerarayn haddana wixii dhacay waad la socotaa waxaan cambaaraynaynaa duulaanka soomaaliya ku qaaday etoobiya waa gardarro cad idinkuna waxaan qabnaa inaad sidaasoo kale u hadashaan nala qaadataan soomaaliya iyo siyaad barre waxa uu samaynayo duulaan cad inuu waddan ku qaaday si gardarro cada gardarro furaan ah waa inaan la wada qiro midda labadan idin sheegayna waxaa weeye akhbaaraadka ama buubuuninta tirada kuubaanka oo etoobiya jooga waxaa idiin soo gudbiyey maxamed siyaad barre waxaan moodaynay inaad maxamed siyaad barre barateen soomaad arag maxamed siyaad barre hadalku kugula hadlo iyo ficilku samaynhayo isku mid ma ah soomaad annaga wuxuu noo sheegay inuusan etoobiya weerarayn haddana wuu weeraray nambarka uu sheegahayo oo 60,000 50,000 40,000 uu sheegaya annagu ma hayno tiraduna intaas way ka yar tahay soomaad arag etoobiya haddaba waxaan hadda kula talinay in aysan u gudbin dhulka soomaaliya marka ogaadeenaya laga saaro ciidanka soomaalida marka gobolka ogaadeenaya laga saaro etoobiya inaysan xuduudda u gudbin baan kula talinay mingistana toos baan ula hadalnay waan u sheegnay kuubaankuna laftigoodu sidaasay qabaan etoobiyaanka way la hadleen waxayna ku yidhaahdeen marka aad gobolkiina ka saartaan ma gudbi kardhaan xuduudda soomaaliya mingistana waa nala qaatay arrintaas soomaad arag marka arrinta soomaaliyana halkaasaan uga gudbahayaa tan kale oo ku saabsan waddamada rhodesia ama namibiya ama sa'iir rhodesia iyo namibiya waxaad sheegteen inaan ama ciidan geynay ama hal askari oo qori wata ama xabad riday oo raashiyaana oo afrika ka dagaalamay ma jiro hal nin teeda kale annagu ma haysana buu yiri waxa la yiraahdo napoleon raashiyaana ma haysano yiri napoleonku wuxuu xusahayaa ninkii faransiiska napoleon bonaparte la oran jiray oo adduunka dhan qabsan jiray meel walba xabadda la aadi jiray marka wuxuu leeyahay annagu ma haysano napoleon raashiya ma jiro oo afrika intuu tago dowlad uga baxaya ma jiro ma haysano leeyahay laakiin hal wax baan haynaa waxaan afrika u hayna waxa weeye inaan gumaysiga ka soo horjeedno sidoo kalena aan ka soo horjeedno midabta koorka labadaas afrika gacan baan ka siinaynaa hubna waan ku bixinaynaa laakiin ciidan dagaalama oo afrika aan geynayna ma jirto
ciidankaas waxa keliya Afrika naga aada ama Ethiopia naga aada ama meel kale naga aada khuburo weeye hubka baraysa keliya soo darag marka labada wadan Namibia iyo Rhodesia arinteeda sidaasaan ka oranayna tan Zaire ahna idaacadihiinaan ka maqalnay maanan ogeyn mana ogin wax la yiraahdo niman baa Zaire ka soo galay iyo waxay yihiin war uma hayno doodii intaas uga baxay madaxweyne Carter ba ku soo laabanay Jimmy Carter ba ku soo laabtay asagoo haddaba si waadixinaya eedaha uu u jeedinaya Raashiyaanka waxa uu yiri waxaad hadal ka keenteen tirada Kuubaanka aan sheegayno baad hadal ka keenteen waxaan ognahay Siyaad Barre waxaad ka keenteen duulaankii uu ku qaaday Ethiopia waa run waan ka soo horjeednay in ciidamada Soomaaliya ay weeraraan Ethiopia laakiin weerarka Ethiopia Soomaalidu ku qaaday Ethiopia waxa u sabab ah hubkaad bixiseen idinku Raashiyaanka hubkiinii baa lagu weeraray Ethiopia idinka marka ka shaqeeyay halkaas u eedeynaya dhinaca kalena Soomaaliya marka laga soo saarayay Ethiopia generaaladiinii weeye waxa Soomaalida ka soo saaray Ethiopia Ethiopian ma aysan ahayn waxa hogaaminayay dagaaladii Soomaaliya looga soo saaray ogaadeen iyo looga soo saarayay waxa hogaaminayay ciidankiin generaaladiinii ugu waaweynaa baa hogaaminayay ciidanka hogaaminayaan Kuubaan buu ahaa Kuubaankuna ciidanku meesha keenay generaaladiinuna dagaalkay hogaaminaysa Soomaali arag wadamadan kale Eritrea markaan soo xusnay waxaan ognahay Kuubaanku inay tageen dhiigna ku daadinayaan meesha Soomaali arag marka waxaan ugu baaqaynaa Raashiyaanku in uu noqdo mid gacan naga siiya sidii aan wax u dejin lahayn in aan isgarabsano idin Raashiyaanka iyo Mareykanka Soomaali arag annagu Ethiopia sidaad ula hadasheen baan ula hadalay hadeertaan waxaana u sheegnay inaysan xuduudda Soomaaliya uusan u gudbin dhulkeeda haday la soo laabato taas idinkuna waa sheegteen waan la soconnaa laakiin waxay idin sheegin generaaladiinii bay idin sheegin iyo ciidamada kale adigu Jimmy Carter wuxuu leeyahay intaan iska dayna hadalka ficil aan la wada nimaano aan u wada talino aan nabadda ku soo celino wadankani wuxuu leeyahay geeska Afrika waa meel ma ahan waa meel arrintiisu sahlan tahay ma ahan geeska Afrika marka sidii aan hadii aan wada soconno idinka Raashiyaan iyo annagu waxbaan ka qaban karnaa Goromigo hadalku asna ku soo laabanaya laakiin markaan uu soo xiraya hadalka waxa uu leeyahay annagu mar walba diyaar baan u nahay wixii horseedaya nabadda laakiin marna yeeli mayno gumaysi mabda ayaga ka soo horjeeda Soomaali arag gumaysiga iyo midabtakoorka labadaas waa inay meesha ka baxaan wixii kaloo nabada Soomaaliya Siyaad Barrena ha isku hadlaynina inaad dhageysataan haddii ayna maanta dhageysan berri baa casharka u idin dhigo aad wax ka baran doontaan Soomaali arag arrinta Siyaad Barre warbixinada aad la soo shirtageysaan sida Kuubaan 60,000 Ethiopia ama 20,000 ama intaas jooga warbixinada Siyaad Barre ha ku talagelinina annaga ku eedownay oo Soomaali arag waayo hubka aan siinay aad sheegaysaan umaanan siin sharciga aan ku siinay hubka waxa ku qornaa inuu isku difaaca ma ahan uusan wadan saddexaad ku weerari karin hubkaan siinay oo dhan difaac buu ahaa qodobkaasaan waan wada saxiixanay Siyaad Barre meesha uga dhaqaaqayna waad ogeydeen marka idinkuna haddaad u baahan tihiin cashar wuu idin dhigayaa cashar haddii aad u baahan tihiin tan aan idin sheegayna wax ku qaata hadalkiisa iyo waxa uu sheegayo oo dhan waa nin dantiisu u caddahay marka yaanan isku qaban war uu sheegay hadal uu waxaad ku duushaanaysan noqon haddaad ku duulaysaanna dib baad ka ogaanaysaan casharada sida annaga nagu dhacday aduu hadalkii waxay ku soo wada xirayaan bal in madaxweynahan la gaarsiiyo Raashiyaanka akhbaarta
arrintaana sidii afrika loogu soo celin lahaa qalalaasaha looga saari lahaa iyadoo la wada jiro ay ku fiican tahay dibna ay ballan kale uga ballamayaan isku soo gunaanad raashiyaanku sida madaxweynuhu tilmaamayo wuxuu aad uga qayliyey sida madaxweyne siyaad barre uu ugu tacadiyey siday sheeganayaan waxa uu leeyahay oo hadalkiisa ku jirtay dagaalkan duulaankan markuu bilaabmay uu arkay siyaad barre in la waxaynayo 2 jeer buu na soo wacay 2 jeer marka hore wuxuu noo sheegay yiri inuu ka xun yahay inuu Ethiopia khaladka uu sameeyay Ethiopia inuu weeraro waxaan u sheegnay annaguna inuu ciidamada kala baxo gobolka wuxuu yiri dagaalka wasaqaysan buu ugu yeeray eragaas siyaad barre isticmaalay buu yiri waan ka xumahay inaan dagaal wasaqaysan gacanta la galo moogto Soomaaliya marka wuxuu leeyahay wasaqaysantu sida hadalka turjuwaanka siyaasiyan wuxuu leeyahay waa waxan proxy war la yiraahdo quwado kala soo galiyay dagaalka ama dana kala riixayay dagaal soo gashay siyaad barre marka siyaad barre wuxuu yiri waa ka xumahay dagaalkan galay waana ka baxaya barlamaad maalinta ay wada fadhiyaan 27 May 1978 wuxuu leeyahay isla maalmo ka hor buu marlabaad siyaad barre ku ceshay inuu ka xun yahay dagaalkan marka mar walba waa uu qirtay dagaalkaasi inuu ka xun yahay oo galay siyaad barre uuna ahaa dagaal wasaqaysan Soomaaliya saasay buu raashiyaanku u gudbinayaa Mareykanka labada erayo ma aragtay wuxuuna uga digayaa siyaad barre nin la isku hadlayn karo ma aha inaan la isku hadlayn moogto Soomaaliya marka nuxurka shirkaas warbixinta laga qoray intaas ay ku kooban yahay markaan ka tago arrimaha Afrika Namibia sida Soomaaliya laakiin tan inta Soomaalida qusaysa ama raashiyaanku ay ka qabeen dawladda Soomaaliya ama duulaankaas ama sida Mareykanku u arkay in duulaanka Ethiopia Soomaaliya looga soo saaray generaalada raashiyaanka hogaaminayay iyo ciidamada Kuubaanka la yiraahdo qoladaas ka soo saartay Soomaaliya ka soo saartay dagaalkana la wareegay Ethiopia kana soo saartay gobolka Ogaadeenka sigan aan xusay intaas baan ku soo xirayaa bal wixii aad ka fahanteen ama aan ka baran karno hoos ku soo qora maca salaama